amniga iyo cadaaladda oo ah tiirka koowaad ee higsiga xukuumaddeena ayaa waxaa xoogga lagu saaray hirgelinta qorshaha amniga qaranka, fulinta qorshaha kala guurka amniga, iyo iyadoo si weyn loo dardargeliyey isku dhafka ciidamada qaranka si loo helo ciidan astaan qaran leh kuwaasoo ku howlan fulinta howlo loo qorsheeyey. waxayna xukuumaddu si buuxda ugu guulaysato inay hirgeliso tirinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan hore loo samayn. ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliyeed waxay diiwaan gelisay 16,203 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mid walba xuquuqdiisa ay si toos ugu dhacdo akoonkiisa gaarka oo mobilkiisa ku helo. hadda waxaa gacanta lagu hayaa xaqiijinta inta hartay iyo tayeynta iyo taakulaynta dhammaystiran ee dhammaan ciidamada qalabka sida. dowladdu waxay ku haminaysaa in dib u habaynta ciidamada oo dhan si aan uga adkaano argagixisada la soo afjaro dhammaadka sanadkan haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale dowladda Soomaaliyeed waxa ay bilowday inay la wareegto goobo waaweyn oo markii hore ay hayn jireen ciidamada walaalaheen ee noo soo gurmaday AMISOM. sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in booliska Soomaaliyeed uu bilaabay qorshe cusub oo lagu dardargelinayo sugidda amniga caasimadda. waan mar dhow rajeynayo inuu miro dhal noqon doono. waxaa kaloon iyadana idin xaqaajinayaa inay ciidamada xoogga dalkuna ku howlan yihiin howlgallo lagu xoojinayo sugidda amniga caasimadda.